kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV oo laba aynu kala socono arrimaha fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed sidoo kale waxaynu soo bandhignaa arrimaha fanaaniinta iyo nolosha fanaaniinta iyo wararkooda haddaba sidaynu wada ogsoonahay baryahan waxaa socotay xafladda arooska ee fanaanka loo yaqaan Qamar Suugaani iyo waliba xaaskiisa cusub ee Nasiim Sooraan taasoo uga timid dalka dabadiisa xafladani waxa ay ka dhacday magaalada Hargeysa sidaas oo tahayna waxa uu hadal ka soo yeedhay xilligii lagu guda jiray xafladda qabanqaabinteeda gaar ahaan habeenkii arooska fanaanada loo yaqaan Ugbaad Aragsan oo aynu wada ognahay inay ahayd xaaskii hore ee fanaanka imika aroosanaya ee loo yaqaan Qamar Suugaani sidaas oo tahayna fanaanadani waxa ay ku tilmaantay fanaanka wax يعني aad iyo aad u xun sidaas oo tahayna ereyga aadka jumlad waliba erey maaha waa jumlad aad iyo aad u xun sidaas oo tahayna si aynu u soo bandhigno isla markaana aynu ogaano ugu horeyn daawad haddii aad kanaalka cusub tahay calaamadda subscribe ka taabo kadibna calaamadda gambaleel ka taabo kuna soo dhawow barnaamijka qaybtiisii dambe daawadayaal ugu horeyn fanaanadan loo yaqaan Ugbaad Aragsan weerarka afka ay ku qaaday fanaanka loo yaqaan Qamar Suugaan xilli arooskiisa uu ku jiray taas cadayn buuxda ayaan idinka haynaa isla markaana waa idin soo bandhigaynaa balse fanaanadan waxa ay ka mid tahay fanaaniinta xidigaha geeska gaar ahaan fanaaniintii dambe xidigaha geeska balse kuma jira Qamar Suugaan xidigaha geeska laakiin sidaas oo tahayna fanaanadan waxay taageero buuxda ka haysataa kooxda loo yaqaan xidigaha geeska ee magaalada Hargeysa ka tirsan sidaas oo tahayna fanaanadan hore waxay tiri iyadoo arrimo badan ka hadlaysa faaladu waxay tahay nin isfaanshay baa yiri waxaan ahay fariidkii filkaba ka sareeyay caashiqa ma fulina faynus ma daarna aan ficilka daymada sida kama filaye inuu farasku gaabshe haddana waxay ku xigsiisaa oo tiri fanaanadani adoon fariin diiran ama faaladeed gelin farta bidix ka sii fuul boos farta bidix ka sii bood booska hore ka sii fuul waa iska garanaysaa mar malaynaya erayada iyo waxa uu la jeeday fanaanadu erayadaasi sharaxaad uma baahna run ahaantiina heesta waxa la yiraahdaa doonaysa dhageysataan baska hore ka sii fuul baa la yiraahdaa heesta magaceeda sidaas oo tahay daawadayaal sidaynu wada ogsoonahay Qamar Suugaani waa fanaan fanaanadan ay mustaqbal hore soo wadaageen isla markaana calafkoodii kala dhamaaday dadkuna hadduu calafkoodu kala dhamaado run ahaantii inay kala faaruqaan baa wanaagsan haddana dhowr heesood oo isu qaadeen oo uu Qamar Suugaanina uu u qaaday fanaanadan iyaduna ay u qaaday baa jira kuwaasoo heesahaasoo dhammaantood la odhan karo waa heesa la isugu jawaabayay run ahaantiina sidaynu ognahay fanka Soomaalida ama fanaaniinta Soomaalida inta badan waxay yaqaanaan markii la kala tago haddana waa la isu sii jawaabaa haddaba daawadayaal inagoo taa ka duulayna muhiimadda koowaad ee aynu ka hadlayna waxay tahay fanaanka maadaama ay wada noolaayeen isla markaana fanaankan imika uu yahay fanaan aroosa iyaduna ay qof kala yeelatay haddana waxaa jira weli weerar dhinaca afka oo la isku qaadayo taasoo la odhan karo fanaaniintu inta badan imika hadday noqoto dhan kasta oo nolosha weerar dhinacaasa way isku qaadan sababtoo intaa waxaa dhex maraysa wada shaqayn sidaas oo tahayna intaa waxaa imika wax walba sii fududeeyay isla markaana wax walba sii bumbuuniyay waxa weeyaan baraha bulshada iyo internetka guud ahaan sidaas oo tahay daawadayaal fanaankan loo yaqaan isaguna loo yaqaano fanaankan Qamar Suugaani loo yaqaano waxa uu hees u qaaday isla markaana heeso badan uu u qaaday fanaanada loo yaqaano Ugbaad Aragsan fanaanadaas oo xaaskiisa hore ahayd laakiin daawada dhinaca kalena waxaa jira heeso badan oo uu qaaday xaaskiisa cusub isla markaana heesaha waxa kamid ah heesta loo yaqaano Nasiin oo dabcan uu magaceeda ugu daray waayo xaaskiisa waxa la yiraahdaa Nasiin sidaa daraadeed waxa ugu daray ama ugu magac daray heesta Nasiin waxaanu oranayo erayadeeda kamid ah intaan erayadeeda u gudbin horta heesta waxa uu ku soo jiidanayaa isla markaana uu doonayo inuu qalbiga xaaskiisa dhex degaba taasina waa waxa ninka ragga laga rabo laakiin daawadayaal heestan Nasiin la yiraahdo
bal erayadeeda ayaynu soo qaadan doonaa. waxa uu odhanayaa nasiin kelmadaha hankay, nasiin kabaha xiskay. run ahaantii waa kabihii xiska loo xiranaya miyaa ma garanayno. nasiin ka hiil baxo kufkayga idhaafisaa, koonkaba waxaa dumar ku nool, haddii koorta laygu xidho adaan keli kaa janto, ma karo qalbigani mid kale. yacni qof kaleba niyadda kuma hayo ayuu leeyahay. inaan kulan kugu bartana yacni nasiibka adeega iyo kariimka mahaddaa iska leh, kashuna way kuu og tahay. yacni inaan marun kulanno, islamarkaana aad ii timaado, islamarkaana xaas oori aad ii noqoto, guri aan wada degno, nolosha ku wada qaybsanno. waxa weeyaan yacni nasiibka adeega iyo kariimka mahaddaa iska leh. yacni inaan ilaahay baan uga mahad celinayna intaaba. haddaba daawadayaal, bal aynu soo noqonno fanaanada loo yaqaano Ugbaad Aragsan iyo welibana qaabka ay uga jawaabtay arooska fanaankan. waayo maalmihii hore waxaa soo socotay oo hadalhaynteeda aad maqlayseen, gabadha la yidhaha Nasiin, islamarkaana ka imanaysay qurbaha, islamarkaana fanaankan u imanaysay, islamarkaana la aqalgalaysay. ugu dambeyn adigu way aqalgaleen. aqalgalkoodii laakiin de waxa uu noqday wax social media oo dhan haysta, islamarkaana xataa fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa dadweynaha usoo bandhigaya aqalgalkooda iyo sawiraantooda. run ahaantiina waxaan rajaynaynaa inay isku waaraan. laakiin fanaanada loo yaqaano Ugbaad Aragsan oo ah fanaanad aad loo jecel yahay, islamarkaana ah qof maaragtay qurux ilaahay siiyey, islamarkaana qof ilaahay dhoola cadayn siiyey, islamarkaana ah qof yacni run ahaantii marka la odhan karo waxaa fanka ku jira dumarka, yacni dumarka ugu quruxda badan bay ku jirtaa, islamarkaana waxay ku jirtaa dumarka Soomaaliyeed yacni inta badan maaragtay shacniga iyo maaragtay burjiga leh, yacni qofka soo jiita. run ahaantii fanaanada Ugbaad Aragsan la yidhaahdo, iyadoo fanka wax badan ba ku jirin ayay islamarkiiba caan noqotay. taasina waxay ku cadaynaysaa bulshadu sida ay u taageersan tahay iyo sida ay u jecel yihiin, iyo weliba sida maaragtay ay u tahay fanaanad mustaqbal wanaagsan leh oo talantigeeda iyo welibana maaragtay codkeeda uu aad u wanaagsan yahay. haddaba fanaanadan loo yaqaano Ugbaad Aragsan iyada lafteeda run ahaantii way la socotay social mediaha iyo waxyaabaha ka socda. waxyaabahaas ay uga horeeyaan waxyaabaha Soomaalidu isla dhex marayaan sida arooska Qamar Suugaani. laakiin run ahaantii haddaynu soo bandhigno aynu ka hadalno, Qamar Suugaani fanaanadana dhulka ayay la gashay. aniga iyadu waxay tiri hadalkayga waad iska fahmaysaan baan u malaynayaa bay tiri. sidaas ay tahayna Qamar Suugaani fanaanadana waxay dhulka kula gashay oo ay tiri yacni erey run ahaantii la odhan karo waa erey aan wanaagsanayn. yacni ereygaasina waxa weeyaan erey iyada kasoo yeedhay, islamarkaana waxay kusoo qortay baraheeda bulshada, islamarkaana yacni waxay tiri oo ay soo qaadatay iska noolow sidii xoolaha. yacni adduunkan iska joog bay tiri sidii xoolaha oo kale. bal adu qiyaas. run ahaantii waa wax maaragtay la odhan karo ereygaasi kuma haboono qof binaadan in lagu yidhaahdo, laakiin haddana wax jiraba wuu iska soo bixi doonaa. fanaanadani waxay tiri iska joog adduunkan sidii xoolaha oo kale. macnaha waxa weeye maalinba naag iska guursamayaa, sideeba dhinacyo baynu qaadi karnaa. maalinba gabadh iska guursamayaa, maalinba meel iska marmarmiyaa, maalinba maaragtay mid u heesmiyaa, mise waxa weeyaan adiga waxaa tahay baan wanaqaanaa. maxaynu u qaadi karnaa? kolley dee daawadayaasha idinkuun baa idiin daynaynaa, anagu run ahaantii qalbiga dad kuma jirno, laakiin waad cabiri kartaan idinku. sidaas ay tahayna fanaanadan loo yaqaano Ugbaad Aragsan ilaa hadda umuu soo jawaabin fanaanka loo yaqaano Qamar Suugaani. laakiin haddii uu soo jawaabo wuxun bay noqonaysaa inuu kelmadahaas maaragtay kelmado ka duwan oo islamarkaana uu isaguna dadweynaha yacni si toosaan ugu sheegin, laakiin si dadban ugu sheego inuu ugu soo jawaabo. haddaba fanaanada loo yaqaano Ugbaad Aragsan iyadoo yacni waxay hadalka markay soo qorayso waxay soo qortay yacni hadal run ahaantii markiiba qofku uu iska fahmayo, laakiin iyadoo weliba sawirkeeda soo raacisay. laakiin fanaanadani marka ay hadalka qoraysay ugu horeyn waxay soo qortay iska joog adduunka sidii adhiga oo kale ayay tiri. waxaanay soo sawirtay laba laxaad. labada laxaad waxaynu ku macnayn karno ma garanayno, ma Qamar Suugaani iyo xaaskiisaba ma cid kale ma garanayno. haddaba waxaa macnaha weyn leh ama halkay yacni arrintu maaragtay muhiimadda ka leedahay waxa weeyaan oo de weliba macno weyn leh. waxay tiri markay ay soo qortay iska joog
yacni iska joog adduunka sidii ariga oo kale ayay waxay raacisay micnaha la joogo waa inaad iska fahantaa. micnaha la joogo xalay waxay ahayd arooska qamar suugaani ilaa maantana sigaa la hadal hayay. marka micnaha la joogo waa inaad iska fahantaa bay tiri. micnaha la joogo run ahaantii way tahay, waa sax. oo micnaha la joogaya waxa weeyaan arooskii qamar suugaani baa lagu jiraa oo maanta waqtigiisuu joogaa. iyaduna waxay tiri micnaha la joogo waa inaad iska fahantaa. run ahaantii de waxaynu odhan karnaa waxa weeyaan ereygan waxa uu ku socdaa fanaanka loo yaqaano qamar suugaani. run ahaantiina waxa weeyaan de erey maaragtay sarbeeban, laakiin haddana waxaynu odhan karnaayo kale isaga kuma socdo. waayo sababtan isaga ugu socon hadalkii lama cadayn, laakiin hadalku sidaasuu eeg yahay. haddaba fanaanada loo yaqaano Nasiim, fanaanada loo yaqaano Jada Ugbad Aragsan waa mid ka mid a fanaaniinta yacni mustaqbalka wanaagsan leh ee maanta magaalada Hargeysa ugu shidan.